saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqa yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo cadeeyay ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxaani waa waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxaani ay nin ahaan u isticmaalaysay iyada waa su'aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda af jooga lama adeega iyada baa joogtaa idinta liigu soo eedeeyay oo ay jidha dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa leeyahay dukaankan ku waardiyaysto meel koondar qofna kuma dilaan qofna wax kuma yeelo gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda haligaysa baan gurigeyga keenaan